saddex wariye oo ka tirsan Harwanaag News ayaa isaga soo baxsaday deegaanada Somaliland kadib markii xabsiga loo taxaabay war ay qoreen aawadiis. Somaliland gaar ahaan Hargeysa waxa ay ka mid tahay sida ay wariyaashan sheegeen meelaha ugu badan ee dadka Soomaaliyeed lagu caburiyo. Saddexda wariye ayaa kala ah Cabdirasaaq Good Nuur agaasimaha Harwanaag News, Cabdiqani Cabdullaahi Asbaro tifaftiraha Harwanaag News iyo Cabdiraxmaan oo ka mid ah howlwadeennada Harwanaag. iyaga oo si gooni uga soo baxay magaalada Hargeysa ayay kulankoodii ugu dambeeyay ku soo qaateen magaalada Garowe halkaas oo ay ka soo raaceen diyaarad ay Muqdisho ku yimaadeen. Wariyaashan oo aan kula kulmay Muqdisho ayaa sheegay in caburin aad u xoogan ay ka jirto deegaanada Somaliland waxaana ay sheegeen in xorriyatul qowlku aad u liito. Shakhsiga iminka ay ka sheeganayaan ayaa ah gudoomiyaha bangiga dhexe oo qof muwaadin reer Somaliland ah uu soo weydiiyay su'aalo aragtidiisana ay daabaceen. ugu dambeyn waxa suura gashay in gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland uu gudbiyo dacwad ka dhana wariyaashan. Xabsiga ayaa loo taxaabay qaarkood ayaa xirnaa ku dhawaad 15 maalin halka midka ugu yari uu xirnaa 4 maalmood. dabadeed markii lagu soo daayay dabin sida ay noo sheegeen waxa ay la kulmayeen cagajugleyn kale oo ah in la sii xiri doono. Cabdirasaaq Good Nuur agaasimaha Harwanaag News ayaa sharaxaya waxa ay uga soo carareen deegaanadoodii. Harwanaag News labadii bilood ee ugu dambeeyayba waxa ay wajahaysay dhibaatooyin ka imanayay dhinaca mas'uuliyiinta ka tirsan xukuumadda Somaliland. Dhibaatadu markii ugu horeysay waxa ka bilowday in gudoomiyaha banka Somaliland ninka lagu magacaabo Ali Ibrahim Baghdadi oo muddo yar oo kooban imika xilkaasi hayay uu nin ka mid ah akhristayaasha shabakadda caalamiga ee Harwanaag News uu ka soo qoray maqaal ku saabsan inuu corruption sameeyay musuqmaasuqa isla markaana uu guriyo waaweyn oo uu weydiinayay markaa inuu lacagta ku dhisnay shacabka Somaliland oo cadeeyaalku ka keenay inuu noo soo gudbiyay isla markaana shabakaddu ay maqaalkaasi baahisay. Gudoomiyaha banka halkay u furnayd inuu qofka maqaalka qoray uu raadsado ama ay u furnayd inuu jawaab ka bixiyo waxa uu ka doorbiday inuu dagaal toos ah la galay Harwanaag News oo uu yiraahdo way aad u baahinaysaan qofkan aragtidiisa. waxaanu ku war helnay haddana iyadoo gudoomiyaha banka dhexe Somaliland uu isticmaalay awood ka baxsan sharciyada oo uu doonayay inuu anaga xabsiga na dhigo. taas way u soo gashay in xabsiga ayana lagu hubsaday saddexdayadanba waxna lagu warqabtay tifaftiraha shabakadda Cabdiqani Cabdullaahi Asbaro 14 habeen ayuu ku xidhnaa magaalada Hargeysa. ana ku xigay 13 habeen baan ku xidhnaa halka Cabdiraxmaan isna howlwadeennada kamid ah uu 4 habeen xidhnaa. inta kadib anaga waxna lagu soo daayay damiinkiina lagu soo daayay ayaanu Hargeysa ku joognay. dacwadii uu ninkaas naga soo gudbistayna halkii aanu ugu ka taagnayn markii hore ayuu baanu ka istaagnay oo ahayd cidii maqaalka qortay wad garanaysaa ay raadso hadii aad si gaar ah anaga noo bartilmaameed sana maxkamadda dacwad ka furo. imika waxoogaa yar ka hor intaanaan u soo bixin magaalada Muqdisho ama magaalada Garowe oo aan markii dambe diyaarad ka soo raacnay intaanaan u soo bixin anigu Hargeysa ku sugan waxaanu ka war helnay in Ali Baghdadi uu dacwadii ka soo qaaday sayidida isla markaana uu keenay maxkamadda gobolka Muqdisho. inta maxkamadda soo gaarin xeerlaalintu soo maray xeerlaaliye ku qortay dacwadana sida ay noo sheegeen dadkii gacanta ku hayay iyo dadkii mas'uuliyiinta hayay xukuumadda Somaliland qayb ka mid ah ka tirsanyiinba. Ali Baghdadi isagoo isticmaalaya shaarkii madaxweynaha Somaliland wuxuu dacwadda ku soo qoray in dhibanaha kood uu yahay madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi dhibanaha labaadna uu yahay isagoo ah gudoomiyaha bangiga Ali Ibrahim Baghdadi. aanu ma garanayo markaa sabab keenaysa inuu Ali Baghdadi ku adeegsado shaarkii madaxweynaha ku shaqeysto. Hargeysa sanadkan oo kaliya waxa lagu xiray 25 wariye halka 4 kale ay isaga carareen. 3 kamid ah ayaan kula kulanay Muqdisho oo ah xubno ka shaqeynayay Harwanaag News. haddaba Hargeysa caburin ka xoog badan midda ka jirta Soomaalida inteeda kale deegaanadooda miyaa ka taagan. maanta dhibaatooyin fara badan oo saxafiyiinta wajahaya oo dadka shacabka wajahayaan ba ka jira. waanu isku nimi anagu su'aashan isweydiinay waxay tahay Somaliland cadaalad ma ku helaysaa maxkamadaas inta kiis ka furto oo leedin dhageysto oo istifaadaan cadaalad ma helaysaa bal isweydiinay. jawaabteedu waxay noqotay in aanay Somaliland habeeraatay maxkamadeeda aanay wax cadaalad ku helaynin oo ay tusaale nool u tahay maanta intaas oo saxafi baa Hargeysa ku xidhan. Cabdimaalik Muuse Coldoon baa 3 sanadood iyo 6 bilood ku xukuman maxkamadiisa lama dhageysan chance lama siinin xukunka ku dhacayna 90% garyaqaanadii u doodiyay iyo dadka shuruucda waxa ku tilmaameen xeerlaali. waxa inta dheer hay'adaha warbaahinta Somaliland ay maanta xidhan wargeyskii forum wuxuu ku xidhan wargeyskii loo oran jiray isaguna haatuf imsa sanadood baxayna wargeyska la yiraahdo hubsad muxuu ku xayiriyay waxa la yiri naday maxaa qaybinta ku baray kulkaas tir isha calinkii dignin way ugu filan tahay. anu markaan eegay institutionska Somaliland ka jiray warbaahinta iiga horeeyay aniga ee dacwada tunka lagu sito lagu qaaday wixii ku dhacay ee aan cadaalad ku helin
ma muuqato sabab aniguna aan cadaalad ku heli kara maadaama oo aan hooyigayga cadaalad ku waayay oo Hargeysa gudaheedii aan maxkamadda aanan ka filan inay cadaalad qaato waxaan go'aan ku gaarnay inaan guud ahaan iskaga soo baxno Somaliland. wariyaashan Somaliland ka shaqeynaya ee isaga soo hayaamay cadaalad darradana tirsanaya maxkamadda miyaa looga adkaaday mise hanti kale ayaa loo adeegsaday. علي بغدادي وحي استعمالي لعق ومحكمة ku farqay taas waxa keentay inaan lafaayagii iyo amnigeeyagii xilli habeenimo anagoo istaba socona aan uga baxno magaalada Hargeysa anagoo waliba maaragtay niman odayaala oo ninkan xasbilay anigu xasbalay ninkan waa nin dhalinyaro laakiin family-giisi dhamaantay waxay nagu tahay inaan qoysaskayagii iyo ubadkayagii iyo carruurtayadii aan gacad ku haynay inaanu ka baxnaa waxa sabab u cadaalad darrada taala maxkamadaha iyo garsoorka Somaliland haday tahay booliis haday tahay xeer ilaalin haday tahay maxkamad iyo haday tahay madaxda qarankooda awoodii ay gacanta ku hayeen ummadda u shaqeynayeen isticmaalaya. xariga wariyaasha ayaa kordhay sanadkan marka la barbar dhigo sanadihii hore sida ay sheegayso Soldier. 5 hay-adood oo warbaahineed ayaa sanadkan oo kaliya lagu xiray Somaliland taasoo ka dhigan in tiradu ay aad u sii korortay marka loo eego sanadihii hore. wariyaashan Harwanaag News ka tirsan ee deegaanada Somaliland isaga soo hayaamay sabab la xiriirta xorriyatul qowlka waxa ay soo miciin bideen Muqdisho oo iyaduna aysan ku nabad gelin wariyaasha ku nool. Calaad Muumin, Goobjoog, Muqdisho.